السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. libaaxii carabta boqor faysal bin cabdilcasiis. boqor faysal wuxuu boqor ka ahaa boqortooyada sacuudi carabiya sanadihii 1964 ilaa 1975. wuxuuna ahaa boqorkii ugu wanaagsanaa ee soo mara boqortooyada sacuudi carabiya. wuxuuna ku caan baxay qaadashada go'aano adag oo ka dhan ah gumeystihii reer galbeedka ka oo qabsaday mandiqada bariga dhexe. boqor faysal wuxuu dhashay sanadkii 1906 wuxuuna ahaa inanka saddexaad ee boqor cabdilcasiis. wuxuuna ku barbaaray guriga awowgii dhalay hooyadii ka oo si wanaagsan u barbaariyay. aabihii boqor cabdilcasiis ayaa siyaasadda soo geliyay isagoo aan gaarin 20 sano. wuxuuna u diray howlo diblomaasiyadeed dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska. markale wuxuu u diray gobolka Casiir si uu u dejiyo xaalad jahwareer oo ka jirta halkaasi. sidoo kale waxa uu soo rogashay in uu xalliyo xaalad kale oo ka jirtay gobolka Xijaas. geesinimadiisa waxay soo saacbaaday markuu qabtay jagada wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi carabiya. markaa uu aabihii ka codsaday inuu xiriirka u jaro dowladda Mareykanka kadib markuu soo baxay qaraarkii lagu qaybinayay dhulka reer Falastiin. laakiin aabihii dalabkaasi kama uusan aqbalin. markuu dhintay boqor cabdilcasiis waxaa talada la wareegay walaalkii boqor Sacuud ka oo u magacaabay Amiir Faysal inuu noqdo dhaxal sugaha. intuu ahaa dhaxal sugaha wuxuu qabtay jagooyin badan sida wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda arrimaha maaliyadda iyo jagooyin kale. boqor Sacuud waxaa ku dhacay xanuuno badan, xanuunadaas oo u diiday in uu guto waajibaadkiisa shaqo. sidaa daraadeed Amiir Maxamed oo ahaa inanka ugu weyn carruurta boqor cabdilcasiis ayaa isugu yeeray culimmadii iyo amiiradii. waxayna soo saareen culimmada fadwo taa oo soo ku amreysay boqor Sacuud in uu ku fadhiyo kursiga shaqadan uu la wareego Amiir Faysal bin Cabdilcasiis. intaa kadib waxaa qarxay khilaaf xoog leh oo soo kala dhex galay dhaxal sugaha Amiir Faysal iyo walaalkii boqor Sacuud. boqor Sacuud waxa uu ka soo horjeestay go'aankii ay gaareen amiirada iyo culimmada. intaa kadib qoyska boqortooyada iyo culimmada waxay isku waafaqeen in laga qaado boqor Sacuud kursiga laguna wareejiyo boqortooyada Amiir Faysal. sanadkii 1964 waxaa la qabtay kulan weyn oo isugu imaadeen amiirada iyo culimmada. waxaana fadwo lagu soo saaray in kursiga laga tuuro boqor Sacuud, waxaana baycada la galay boqor Faysal. Faysal wuxuu bilaabay inuu hagaajiyo isla markaana horumariyo waddanka. wuxuuna ku dhaqaaqay dib u eegis heshiisyadii lala galay shirkadda soo saarto shidaalka ee Aramco ee ku dhisnaa cadaalad darro. wuxuuna dalbaday in heshiisyadaasi wax laga bedelo. inta uu xilka hayay boqor Faysal wuxuu muujiyay awoodiisa, wuxuuna ihtimaam siiyay qadiyadda reer Falastiin gaar ahaan magaalada Qudus. wuxuu dhaqaale xoog la siiyay Masar oo ku burburtay dagaalkii 1967. inkastoo boqor Faysal iyo Jamaal Cabdinaasir xumaa xiriirkooda, haddana boqor Faysal wuxuu u daneeyay shacabka reer Masar oo gaajo la soo diristay. dhaqaaleysiintaas waa uu waday ilaa Masar ka soo kabato dhibkii ka soo gaaray dagaalka. sidaasoo kale wuxuu go'aansaday in uu shidaalka ka jaro dowladaha reer galbeedka. intii lagu guda jiray dagaalkii 1973 wuxuuna xalliyay khilaaf u dhexeeyay Sacuudiga iyo Masar ee quseeyay arrimaha dalka Yemen. dhanka xiriirka caalamka wuxuu calaaqo wanaagsan la sameystay Faransiiska, wuxuuna ku qanciyay in ay la saftaan Carabta. sanadkii 1966 wuxuu booqday dalka Mareykanka kadib markuu ka helay casuumaad madaxweynihii Mareykanka. tegitaankiisii Washington wuxuu la kulmay mudaharaadyo ay dhigayeen Yuhuudda iyo taageerayaashooda. Faysal wuxuu iska diiday inuu xiriir la sameysto dalka Ruushka, waayo wuxuu diidanaa in mabaadi'da shuuciyadda ay soo gasho jasiiradda Carabta. maalin Talaada ay ku beegan tahay taariikhda 1975 waxaa u soo galay boqor Faysal isagoo oo ku sugan xafiiskiisa in uu adeer u ahaa ka oo lagu magacaabi jiray Faysal bin Musaacid. wuxuuna hoosta ku watay bistoole wuxuuna ku riday 3 baalood taa oo sababtay inuu dhinto boqorka. ilaa hadda lama xaqiijin karo sababta ku kaliftay in uu dilo adeerkiis. waxaa jira dad aaminsan in ay ku dhiirigeliyeen inanka dilo adeerkiis dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska. waxaa kaloo jira aragti kale taa oo ah in uu argudiyay walaalkii Khalid bin Musaacid oo ay dileen ciidamada ammaanka ee dalka boqortooyada. ilaa uu naxariisto boqor Faysal waxaa ka mid ahaa waraydiisii caanka ahaa waa noolaanayna oo yeeshay waxay ku noolaayeen timir iyo caano, labaas ayaana ugu filan. Assalaamu calaykum.